wafdi ka socda dowladda Qatar ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana wafdigan ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoona ay waday diyaarad yar oo laga leeyahay dalka Turkiga wafdiga oo ka socday dalka Qatar ayaa kulamo hordhaca waxay la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana la sheegay inay la kulmi doonaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warar ay heshay marqaan media ayaa sheegay in sababta wafdigan Qatar ay ka socday yimaadeen magaalada Muqdisho ay tahay laba arrimood oo kala ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay uga mahad celiyaan go'aanka dhexdhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay khilaafka u dhaxeeya Qatar iyo dowladaha Khaliijka iyo in aysan kala laaban go'aankaas dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay go'aankan dhexdhexaadnimada uga qaadatay khilaafkii u taagnaa dowladaha Khaliijka iyo waliba dalka Qatar oo ay go'doomiyeen sida wararku sheegayeen waxa wafdigan hogaaminaya wasiir dowlaha arrimaha dibadda dalka Qatar bin Siyaad al-Muraaqi ana socdaalka lama filaanka ah ee magaalada Muqdisho ay ku yimaadeen wafdigan la sheegay inay tahay mid ay doonayeen dowladda federaalka Soomaaliya inay uga mahad celiyaan sida ay kaalinta muhiimka uga qaadatay inay u ogolaato in ay isticmaalaan hawada Soomaaliya